gabar Soomaaliyeed mar dambe oo garooba ma dhihi doonto garooba ninka ku guursanaa waa dhihi kartaa hadda kadib gabara ay bafaatay soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kale iyo xubinteeni bandhiga baraha bulshada muuqaalka hordhaca aad soo aragteen hala yaabina dadka Soomaaliyeed waa loo soo jeestay gaar ahaan dumarkii hore waxa u soo aragteen in ummadda Soomaaliyeed dad ganacsato ay dhaheen ilkahan xirina qaana ilkahan idin xirina dhibaatada ka dhacda waa aragteen markii muddo socotan waxa la bilaabay in la yiraahdo vampire idin ka dhigaynaa miciya idin sameeynayna dadka sameynaya dhaqaatiir ma aan ee waa ganacsato dhaqaale u raadinayo ka soo gudubtaas muddooyinkan waxa aad u wareegayay sameynta muuqaalada wajiga gabdho Soomaaliyeed wajigooda wax ku dhac waaragteen siiba gabdhaha badan marka leeyahay wasaas gabdha ayaa wajiga looga ciyaaray oo la yiri waxa idin sameynaa daaman aman waaweyn adduunka meesha wajiga laga yareynayo dadkii wajiga looga ciyaara dhaqaatiir ma sameeyna hadana ganacsatada sameysatay xayisiina loo sameeyaa intaas oo dhan waxa ka siyaa badan toddobaadkan arkaysan Facebook iyo baraha bulshada waxa yilay gabar Soomaaliyeed oo caana mar rabo ciidan sheego dibnaheeda ama bushmaheeda wax lagu sameeyo aragteen qurux intay raadinaysaa nooca laga dhigay intaas oo dhan ba normal ahayn kama hadlin aniga maanta tii ugu yaabka badneyd ayaa banaanka la soo dhigay meel halis ah meel cajiib ayaa loo socdaa waxa la leeyahay gabaray hadii lagu kufsaday hadaa dheedheeshay hadaa waxaaga hormarsatay waxa doonto sameysay 10 da soo dhashay niman ku guursadeen iska ilow bikra laga dhigaya gabar Soomaaliyeed mar dambe oo garooba ma dhihi doonto garooba ninka ku guursanaa waa dhihi kartaa hadda kadib gabara ay bafaatay sirta ugu weyn oo bahja banaanka keentay wax far ahna lagu qaban karo oo far ah hadaa doonaysid gabaray oo garoob aad tahay ilaa 10 cunug soo dhal 10 cunug dukaanka igu imaanay waxaan ku siinayaa alaab bikra ka dhigays sidee looga dhigayaa bikro dadka ka dhigaya ma dhaqaatiirba mise markale waa ganacsato inta aan u gudbin sheekadaas cajiibka ah iyo waxyaabo kale oo yaab badan marka hore tabeejiga soo biro like follow haddaad igala socoto YouTube kana subscribe saaxiibayaal dalka Soomaaliya dawlad ayuu leeyahay saas oo ay tahay ma shaqeeyaan oo ma howlgalaan wasaaradaha shaqada kule arrimaha aan ka soo hadlay oo aad wada taqaanaan halisa badan ayaa jira dhinacyo badan ay wadankan daroogo ka soo gashaa iyo waxyaabo dadka lagu dhibaateynayo yeelkadeeda arinta ugu weyn waxay tahay in la isku soo dhaadhacay markan xubnihii ugu muhiimsanaa jirka bini'aadanka gaar ahaan dadka Soomaalida ah haday noqon lahayd wajigi afki bishimihii iyo waliba sidoo kale xubintii taranka marar badan waxaad aragtaan dhanka ragga in la yiraahdo degdeg waxa la keenay kii kala tuuraayay kii kala kicinayay iyo waxyaabo kale oo dhamaantood oo loogu magac daray qurxinta familka waa faansantiin Soomaha xaajooyinka marar qaar waxa saddex ragga Soomaaliyeed ma ciniinay wada noqdeen marka arka daawooyinka la xaysiinay mililiska ah ee dhamaantoodba ku aadan ama xubin taranka ama nooleynta xubintaasi hadda way soo dhaaftay meeshii aan naqiinay waxay taagan tahay in gabdhihii Soomaaliyeed laga dhaadhacsiiyay inay amankooda balaariyaan oo ay wajigooda weyneeyaan laga dhaadhacsiiyay in ayl feega ay sameystaan laga dhaadhacsiiyay in bushimahooda amba dibnahooda la weyneeyo ayadoo ay ognahay dadka Afrikaanka amba Carabta marka horeba in Ilaahay uu munaystay bushimo amba dibno qurux badan hadana la si weyneynayo cadaanka la iska dhigayo intaas oo dhan anagoo og ayaa hadana la yiri vampire ayaa idin ka dhigaya sida idin muuqato miciya idin sameynaya waxaas oo dhan qaadanay maanta gabadhani maxay wadaa maxay sidaa oo fariina oo inala hortimid gabar Soomaaliyeed mar dambe oo garooba ma dhihi doonto garooba ninka ku guursanaa waa dhihi kartaa hadda kadib gabara ay bafaatay sirta ugu weyn oo bahja banaanka keentay ayada waa u maalin kale oo qurux badan waa u maalin kale oo ganacsi wax far ahna lagu qaban karo oo far ah hadaa doonaysid gabaray oo garoob aad tahay ilaa 10 cunug soo dhal 10 cunug dukaanka igu imaanay waxaan ku siinayaa alaab bikra ka dhigays haddii aan tan wax laga qabanin amba aan laga hortagin maxaa xigi kara waxba harin laakiin maxaa xigi kara waxa kale oo kugu darayaa dadka waxa sameynayo dhanba dhaqaatiir ma ahan shaqana kuma leh businessman waxay sameynayaan kambaniyal ajaanibi xiriir la sameynayaan waxaas loo baahan yahay waa loo sameynaa halista ay leedahay side effects kay leedahay lama ogo wajiga lagu tijaabina dad fara badan u jiifay ogaada dad fara badan meel u jiifo bandhiga baraha bulshada aalaaba waxaan diiradda ku saaraa waxyaabaha halista ku ah oo aan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed waa uga tabliiqeyn kartaa maadaama ay tahay tabliiqi baraha bulshada sidaa daraadeed qatarahaas oo dhan
si looga foojignaado muuqaalkan hala sheer gareeyo si uu gaaro hay-adaha shaqada ku leh isla markaana dadka arrimahan ka shaqaynaya ee jirka bini aadanka dhibaateynayana ha loo sheego inay ilaahay ka baqaan oo qofkii yaqaano war ka joog ha yidhaahdo ganacsi ma geli kara halkaas waana halise waa ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalka oo sheer garaysa waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inaad badbaadinaysid intaan dib u kulmayno nabadiino